kadib markii ay heleen internetkaas waxaa si xun loogu isticmaalay faafiin ka dhan ah nacaybka muslimiinta gaar ahaan Rohingyaha sanadkii 2017 waxaa dhacay xasuuqii ugu xumaa abid ee ka dhaca dalka Myanmar sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha xasuuqaas waxaa lagu dilay maalmo kooban dad kor u dhaafaya 25,000 oo qofood waxaana ku barakacay 700,000 waxaa intaas si dheer kufsiga 18,000 oo dumar muslimiin ah qaramada midoobay xasuuqaas waxa ay ku tilmaamtay isirsifeen ka dhan ah qoomiyadda Rohingyaha UN Secretary General Antonio Guterres has urged Myanmar authorities to end violence against Rohingya Muslims, saying the situation there could best be described as ethnic cleansing. I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, uphold the rule of law, and recognize the right of return of all those who had to leave the country. laakiin su'aashu waxa ay tahay waa maxay cadaawadda gaamuurtay ee ka dhaxaysa Baarmeyska iyo Rohingyaha maxaa sababay gumaadka iyo xasuuqa intaan la eg dowladda Myanmar waxa ay sheegaysaa in shacabka Rohingyaha ay yihiin muhaajiriin ka yimid Bangladesh halka Rohingyaha iyaguna ay sheegeen in dhulkan ay ku noolaayeen abka ab taariikhda qoomiyaddan waxa ay dib ugu laabanaysaa muddo ka badan 13 qarni sida taariikhyahanada ay sheegeen waxa ay degganaayeen dhulkan ilaa qarnigii 8aad sooyaalkii hore dhulkan waxa ka talin jirtay boqortooyadii Arakhan boqortooyadu waxa ay xiriir ganacsi la lahayd boqortooyadii Bengal iyo boqortooyadii Mughal waxa ayna ahaayeen boqortooyooyinkii muslimiinta ee ka talin jiray inta badan dhulalka maanta loo yaqaano Hindiya iyo Bangladesh boqortooyada Arakhan islaamku waxa uu ku faafay intii u dhaxaysay qarnigii 9aad ilaa qarnigii 10aad markii ganacsatada muslimiin ah ay yimaadeen iyagoo xiriir guur ah la sameeyay dadkii deegaankaas ku noolaa 1784 waxaa ku soo duulay oo qabsaday boqortooyadii Kambun ee Baarmeyska 1824 waxaa xigay gumaysigii Ingiriiska oo isna qabsaday dhulkan markaas oo Arakhan ay noqotay qayb ka mid ah British India dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1942 ciidamada Japan waxa ay galeen Burma waxa ayna si tartiib ah u qabsadeen meelo badan oo muhiim ah ciidamada Ingiriiska ee xukumayay Burma waxa ay si daran ula dagaalameen ciidamada Japan waxa ayna noqotay Myanmar goob dagaal oo u dhaxaysa xoogagii Ingiriiska iyo kuwii Japaanka intii lagu jiray dagaalka quwadihii Japaanka iyo Ingiriiska mid walba waxa uu ballanqaadiyo u sameeyay qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkaas si ay taageero uga helaan Baarmiyiinta waxa ay taageereen Japan si ay uga xoroobaan Ingiriiska halka Rohingyaha iyaguna ay taageereen Ingiriiska maadaama ay la kulmi jireen xadgudubyo kaga imaanayay bulshada Baarmiyiinta oo u badan boodiiste taasoo keentay in ay taageeraan Ingiriiska si ay u helaan awood ay iskaga difaacaan kooxaha kala duwan ee ku nool dalkaas waxa uuna Ingiriiska u ballanqaaday haddii dagaalka lagu guuleysto in uu siin doono madax banaani buuxda una aqoonsan doono gobolka Arakhan dhul muslimiintu ay leeyihiin si kastaba ahaatee ciidamadii Ingiriiska iyo kuwii Rohingyaha waxa ku adkaatay in ay iska difaacaan xoogagii Japaanka waxaana ciidamadii Japan ay qabsadeen inta badan dalka Myanmar markii ciidamada Japan ay qabsadeen gobolka Arakhan Baarmiyiinta waxa ay weerareen Rohingyaha iyagoo u arkayay in ay ka faa'iideen intii lagu jiray xukunkii Ingiriiska taasi waxa ay keentay in kumanaan Rohingya ah lagu dilo guryo iyo toolooyin badan lagu burburiyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1945 markii la wiiqay awooddii Japan ciidamadii Ingiriiska dib ayay ugu soo laabteen gobolka waxayna qoomiyadda Rohingyaha isu arkayeen in ay yihiin saaxiibadoodii dagaalka kala safashadan waxa ay aasaas u noqotay khilaaf hor leh oo dhex mara qoomiyadda Rohingyaha iyo Baarmiyiinta dagaalkii kadib Ingiriisku waxa uu qiyaamay Rohingyaha maadaama uusan u fulin balantii ahayd in ay muslimiinta Rohingyaha ay yeelan doonaan dawlad madax bannaan 1948 markii Myanmar ay heshay madax banaanideedii Rohingyaha waxa ay rabeen in ay la midoobaan bariga Pakistan oo markii dambe loo bixiyay Bangladesh nasiib daro codsigaas waxa ka hortimid dawladda Myanmar dad badan oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa u qaxay Hindiya iyo bariga Pakistan horaantii 1942 waxaana laga mamnuucay in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii laga qabsaday intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka waxaana la wareegay hantidoodii iyagoo dhulkoodiina la dejiyay Buddhistihii Baarmeyska bishii Maarso 1962 militariga dalkaas ayaa Afgambi kula wareegay xukunka waxaana laga dhisay dawlad leh hal xisbi oo shuuci ah waxa siyaaday faquuqii in ceebkii lagu hayay muslimiinta gaar ahaan Rohingyaha waxaana cagta la mariyay ururadii bulshada iyo siyaasadda oo ay lahaayeen
sanadkii 1982 dowladda Myanmar waxa ay ansixisay sharci cusub oo ku saabsan dhalashada oo shuruudihiisu aad u adkaa waxaana ku qornaa in qofka uu keeno dukumiintiyo muujinaya in qoyskiisu u deganaa Myanmar ka hor sanadkii 1823 oo ah xilligii gumaysiga Ingiriiska qoomiyadda Rohingya oo qarniyo fara badan ku noolaa gobolka Rakhine ma aysan awoodin in ay buuxiyaan shuruudahan sababtoo ah suurtagalnimada helidda dukumiintiyaashaas oo ahayd mid aad u adkeed taasoo sababtay in laga reebo liiska 135 qowmiyadood oo si rasmi ah loogu aqoonsaday xilligaas waxa ayna ka dhigtay in ay waayaan xuquuqdii muwaadinimo sida waxbarashada daryeelka caafimaadka shaqada iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa taasoo sababtay dhibaatooyin iyo tacadiyo ka dhan ah muslimiinta qowmiyaddan waxa ay wajaheen dhibaatooyin ba'an oo isugu jira xasuuq dagaal iyo cunsuriyad laga soo bilaabo 1942 ilaa iyo xilligan aan joogno lamana yaqaan waqtiga sida rasmiga ah ay u dhamaan doonaan sanadkii 2011 Myanmar waxa ay gashay isbedel siyaasadeed kadib markii militarigii talada dalka hayay ay ogolaadeen doorasho dimuqraadi ah kadib muddo 50 sano ah oo ay ka talinayeen dalkaas intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2016 markii Myanmar ay heshay internetka iyo adeega Free Basics waa adeeg ay Facebook ugu talagashay dadka aan awoodin in ay bixiyaan adeegyada internetka caadiga ah si ay u helaan internet bilaash ah oo ay iskula xiriiri karaan adeegyo kooban oo ay ka mid tahay Facebook. Facebook announced the Internet.org initiative in 2013 and has teamed up with telecom operators in 19 countries across Latin America, Asia, and Africa. The app offers low data access to a small collection of sites offering job listings, sports scores, and, of course, a simplified version of Facebook and Messenger. kadib markii ay heleen internetkaas waxaa si xun loogu isticmaalay faafin ka dhan ah nacaybka muslimiinta gaar ahaan Rohingya sanadkii 2017 waxaa dhacay xasuuqii ugu xumaa abid ee ka dhaca dalka Myanmar sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha xasuuqaas waxaa lagu dilay maalmo kooban dad kor u dhaafaya 25,000 oo qofood waxaana ku barakacay 700,000 waxaa intaas si dheer kufsiga 18,000 oo dumar muslimiin ah dhibaatadaas waxa ay sababtay in ay u qaxaan dalka Bangladesh gaar ahaan xerada qaxootiga ee Kutupalong oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn adduunka sida uu daabacay macadka Australian Strategic Policy sawirada dayax-gacmeed oo muujinaya baaxadda ay la eg tahay burburka uu geystay xasuuqaas iyagoo ku qiyaasay in 40% deegaanadii ay ku noolaayeen Rohingya la burburiyay intii lagu jiray xasuuqaas sidoo kale waxa ay sheegeen in dowladda Myanmar ay u isticmaashay dhulkii laga burburiyay mashaariic iyo xarumo dawladeed sanadkii 2019 Gambia waxa ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda ee ICJ dacwad ka dhan ah Myanmar iyadoo ku eedeysay in ay xasuuq iyo tacadiyo u geysatay muslimiinta Rohingya Gambia waxa ay maxkamadda ka dalbatay in la joojiyo tacdiyadaas iyadoo wakiil ka ah midowga Afrika iyo dalalka Islaamka To Myanmar, the International Court of Justice dismissed objections by Myanmar to a case alleging that it is responsible for genocide against the Rohingya minority community. The jurisdiction sets the stage for hearings and investigation into evidence of atrocities committed against the Rohingyas. ICJ ayaa amartay Myanmar in ay qaado tallaabooyin lagu ilaalinayo xuquuqda Rohingya inkasta oo go'aanka madambeys aan laga gaarin haddana waxa ay noqotay dacwadan mid dunida oo dhan isha ay ku hayso intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inta muuqaalka mid lamida kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo